fadhigii maanta ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland waxa ay ku ansixiyeen xeerka sahaminta shidaalka Soomaaliland kaas oo ay wax ka bedel iyo kaabis ku soo sameeyeen mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland waxaanu gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo halkaas xildhibaanada ugu akhriyay qodob iyadoo xildhibaanaduna ay qodob u ansixiyeen xeerka sahaminta shidaalka Soomaaliland intaasi kadib gudoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxa uu ku dhawaaqay natiijada xildhibaanada u codeeyay xeerka sahaminta shidaalka qodobada ka wada hadalay qodobka koowaad ee wadaxka wuxuu ku ansaxay golaha wakiiladu ku ansaxay qodobkii koowaad ahayd oo eray bixinta iyo hordhaca wuxuu ku ansaxay 42 oo ah soo jeedintii golaha guurtida qodobka sideedaad wuxuu ku ansaxay ansixintii golaha wakiilada oo 3 mudan ay qaateen qodobka tobnaad wuxuu ku ansaxay fadlan aan istigiisano 45 cod oo ah guurtida soo jeedintoodii qodobka 13 wuxuu ku ansaxay soo jeedintii golaha guurtida qodobka 14 wuxuu ku ansaxay soo jeedintii guurtida 43 qodobka 15 wuxuu ku ansaxay soo jeedintii guurtida qodobka 17 wuxuu ku ansaxay ansixintii golaha wakiilada 42 qodobka 17 faqradiisa labaad wuxuu ku ansaxay ansixintii golaha wakiilada 46 qodobka 17 faqradiisa lixaad wuxuu ku ansaxay soo jeedintii golaha guurtida qodobka 12 faqradiisa koowaad wuxuu ku ansaxay 48 soo jeedintii guurtida qodobka 12 faqradiisa labaad wuxuu ku ansaxay soo jeedintii guurtida qodobka 7 wuxuu ku ansaxay ansixintii golaha wakiilada gudoomiyaha gudahoosaadka kheyraadka ee golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ku-xigeenkiisa oo iyagu warbaahinta kula hadlay markii uu fadhigaasi soo dhamaaday ayaa waxa ay ka mahad celiyeen ansixinta ay mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland meel mariyeen xeerka sahaminta shidaalka Soomaaliland waxay aad u muhiim wadan walba oo hormaray xeerkaas wax ka bedel farabadan oo dhaqaale ay ku sameeyaa waxaan rajaynayaa xeerkaas inuu hirgalo wadanka faa'iido badan oo keeno bulshada muhiimad aad iyo aad weyn buu u leeyahay xeerkan wuxuu marka hore jideenaya in jamhuuriyadda Soomaaliland inay leedahay wax kasta kheyraad oo wadanka ku yaala qaranka iska leh waxaana inooga mas'uuliyad dawladda insha Allah taala hirgelintiisana waxa ku shaqo kule wasaaradda shirkadaha caalamiga uu dhiirigelinaya inay wadankan yimaadaan maadaama uu yahay wadan sharci leh oo qaanuun leh inay markaa maal gashadaan wixii shidaal ah ama gaas ah soo saarista inta badan wadanada hormaray waxay ku hormareen waa iyagoo ka faa'iideysanaya kheyraadkooda dabiiciga kheyraadka dabiiciga waxay u soo jiitaan wadanka horumar xagga dhaqaale xagga bulshada xagga dhismaha wadanku horumar ballaaran buu gaari karaa sida wadamada carabta oo kale runtii waxa weeyaan golahu maanta waxa weeyaan runtii waxa weeye xeerkaas oo dalka u leh ahmiyad siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid bulsho oo runtii aad iyo aad u weyn Soomaaliland u leh waxaad ogtihiin in qaranka Soomaaliland in muddo aba oo runtii u baahnaa in xeer noocaas oo kala oo muhiimadaas oo kala loo ansixiyo oo maalgashiga wadanka runtii waxa weeyaan ay adduunyadu maal gashato runtii waxa weeyaan dawladda iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta iyo guud ahaan xukuumadana runtii caqabad ku ahaa runtii xeer la'aanta inaan Soomaaliland batrool loo jirin xeerkaasi maanta ummadda Soomaaliland runtii waa ansaxay golaha wakiiladana waa ansixiyay